جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحوليه أعماش ونواناكسان أدقدقا وأغهر مرا انتينا إيمان فتنوين السودبة الله sida habeenka mugdigiisa oo kale yaani midba midda ka dambaysa ka sii daranta oo ka culusta fitnooyinkaasi markay yimaadaan saameyntii dadka ku yeelanaya ayaa nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ruuxu waaga u bariyay isagoo mu'min ah hadduu galabtii gaaray diintii waa ka baxay galabtii buu gaarayaa isagoo iimaan leh waagu wuxuu u baryayaa isagoo diintii ka baxay alladii sawtu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri diintiisii dhanayd buu wuxuu ku iibsanayaa dheef yaroo adduunyo waa magacdoon waa xooladoon waa dhaqaaladoon waa kursi doon waxoogaa yaroo adduunyo abuu dhaafsanayaa diintiisii fitanka maadiga ah iyo maadada iyo taqdiisinteeda abuu nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maanta waxaynu joognaa oo nool lahay xilliga uu nabigu fitnooyinka iyo dhibaatooyinka tilmaamaya qayb ka midaynu nool lahay waxaana nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri zaman ma jiro waqti ma jiro illa hadduu jiro midka ka dambeeya ayaa ka sii shar badan waxaynu joognaa caalam hadda ka hor kala xidhxidhnaa oo nin walba fikirkiisa iyo wuxuu rumaysan yahay meeshiisa la joogay maanta se isku furmay oo tuulo yar noqday nin walbana wuxuu rumaysnaa uu miiska soo saaray waxaan joognaa waqti dhallinyaradaba ha u badnaadeene dad badani ay diintoodii ka fitnoobeen oo ay ku dhaceen afkaar khaldan oo khariban asbaabta keentayna waa la iska garanaya shabakada internetka iyo websaydyada iyo goobaha bulshadu ku kulanto twitterka youtube-ka iyo wixii la mid yawmiyan bal daqiiqad walba waxa la soo dhigaa intaasoo milyan oo fikradood ayaa la soo dhigaa waa miis gaalnimadu saaranta oo ilxaadku dhinac ka saaran yahay oo bidcada iyo shubahaadku dhinac ka saaran yihiin oo khayrka ku jiraaya aad u yar yahay nin muslim ah oo dhalinyaro ah baa halkaa diin ka raadinaya muska iyo xidhka iyo miiska qashinku ka buuxo ayuu rabaa inuu khayr iyo hanuun kala kulmo markaasuu halkaa diin ka raadinaya masaa'ibta khaasatan da'yarta haysato halkaasaa waxaa inooga soo baxaya nabigeenna xadiidkiisii salawaatu rabbi wasalaamu calayh axmed iyo tabaraani iyo qayrkood ay soo saareen min xadiidi cuqbat ibni caamir ina allaha la yacjab min ashaab alladii laysat lahu sabwa allah wuxuu la cajabaa wax lala cajabaana ah ruux dhallinyaro ah oo aan lahayn leexasho lahayn laana da'da dhallinyarada la joogo oo ruuxu uu da'yar yahay cilmigiisa iyo caqligiisu ma bisla xilligii waalidku gacanta ku hayay oo caqli iyo waaye aragnimo lagu maamulayayna waa ka soo baxoo bannaanku u soo baxay caqli iyo garaad ku filanna ma hayo wuxuu marka qarka u saaran yahay wax kasta oo ku yimaadaba inuu liqo afkaar fara badan buu marka liqayaa mana mantagi karo
wax badan baa ku tagahaya uusan soo celin karaynin halkaasuu marka wax ka raadinayaa aafa badan oo haysata weeye da'yarta u badan in badan oo muslimiinta ka midana mushkilad ku haysa haddaba waxaad u baahan tahay masaa'ibtan isdaba taaliya fitankan dad badan la kacaysa qaar mara diineed bay huwa yihiin qaarna waa qayaxan yihiin oo waa qaawan yihiin seed uga badbaadi kartaa asbaab iyo dadaal iyo tawfiiq alle tabaaraka wa tacaala wax rabbigeen bixiyo tabaaraka wa tacaala oo ina siiyo waxa ugu qaalisan iimaanka kadib in dariiqa saxda ilaahay kugu sugo tabaaraka wa tacaala ku tuso ku waafajiyo kadibna kugu sugood ku dhimato wax ilaahay bixiyo waxyaalaha ugu qaalisan bay ka mid saas daraadeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inugu hanuuniyey inaan maalinkiiba intaasoo goor weydiisanno ihdina siraata almustaqiim allow dariiqa toosan nagu hanuuni kuwii aad u nimcaysay dariiqooda allow nagu hanuuni akhyaartiiyo dadkii ilaahay doortay jidkay mareen allow nagu hanuuni kuwaad u cadhootay jidkooda allow naga duw kuwa lumayna jidkooda allow naga leex jidkaa toosanee akhyaartu martayna allow nagu hanuuni maalinkiiba intaasoo goor buu rabbi ina baray inaynu weydiisannoon barino wax ka qiimo badani hadduu jiro halkaasaa la gelin lahaa laakiin waxa ugu qaalisanee ugu qiimo badan waa inaad dariiqa toosan hesho kuna sugnaato kuna dhimato haddaba waxyaalaha loo baahan yahay inaynu ku dadaallo asbaabta inoogu kaalmaynaysa waxaa ka mid ah kow in aynu baranno diinta rabbi tabaaraka wa tacaala cilmigu waa midka dariiqa kuu iftiiminaya waa midka shirkiga ku tusaya jaahiliyada ku tusaya bidcada ku tusaya tawxiidka iyo sunnada iyo wixii ilaahay jecel yahayna ku tusaya dariiqa jannana kugu hanuuninaya haddii aadan aqoon lahayn khatar waxaad ugu jirtaa inaad gasho meel aadan ka soo laaban karayn nabigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi cilmiga ruuxii dariiq uu maro dariiq mara cilmi uu ku raadinayo ilaahay baa dariiqa jannada u sahla lianna cilmiga laftiisaaba dariiqii jannada ah qodobka labaad waxa weeyaan qur'aanka kariimka ah inaad la saaxiibto barashadiisa fahamkiisa ku dhaqankiisa akhrintiisa inaad la noolaato ood garab ka dhigato maxaa yeele rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani dariiq la maro midka ugu toosnaan badan buu idinku hanuuninaya idin tusaya dariiq la maro ka ugu toosan ee ugu fiican ayuu qur'aanku ku tusayaa kugu hanuuninaya allana tabaaraka wa tacaala sidoo kale wuxuu ina yidhi qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin xagga alle waxaa idinka yimid nuur iftiin iyo kitaab cad yahdii bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam cidda raacda kitaabka isaga ah jidadka nabadgeliyada buu ilaahay sababtiisa ugu hanuuninaya jidka nabadgeliyada adduunka aad ku nabadgeli aakhirana aad ku nabadgeli waxaa kugu hanuuninayo ku tusaya qur'aanka kariimka sidaas daraaddeed ruuxii hanuun ka raadiya meel aan qur'aanka ahayn waa lunsan yahay bilowga horeba dariiqii buu ka lumay hanuunka waxaa laga raadiyaa kitaabka rabbi tabaaraka wa tacaala iyo meeshuu alla dhex dhigay midda saddexaadii waxa weeye sunnada nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo axaadiista rasuulkeenna ka sugan maxaa yeelay xilka nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo shaqadiisu waxay ahayd inuu qur'aanka sharxo litubayina linnaasi maa nuzila ilayh inuu dadka qur'aanka u sharxo ilaahay maqsuudkiisa u caddeeyo sidoo kalena inuu u jideeyo axkaam xagga rabbi ka timid iyada lafteeda lianna axaadiista nebiga iyo sunnadiisu salawaatu rabbi wasalaamu calayh saddex bay isugu jirtaa qaybi qur'aanku wuxuu sheegay bay sheegaysaa oo caddaynaysaa qaybina qur'aanka macnihiisii ama ay sii caddaynaysa oo khasisaysaa ama ma ahee iطlaaqiisay qaydaysaa qur'aankiibay sii caddaynaysaa qayb saddexaadna axkaam aan qur'aankuba sheegin bay jidaynaysaa lianna laf ahaanteedaa waxyi ah oo rabbigeen baa wuxuu ina yidhi tabaaraka wa tacaala wixii rasuulku idinla yimaado qaata wuxuu idinka reebana ka hadha
ما كلا قادن ربي تبارك وتعالى صدح ذا قيبوت السنة النبي ككوبان تاي ما كلا قادن وحالينا يري وحكستو رسولك إذن ليما دقاتا وحكستو إذن كربنا كهرب ربي تبارك وتعالى لأن السنة النبي هو مصدر مضح بنان ووحينوت شذي يوم قرآنك هي السنة النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه حديقي سمرك إني نقول لك السنة دي سويه أي تري انتينو برانو أينو قبصناي أيضنا هو طريق اللبات أما هو شيء قصد هذا إنه ضماني كرا إن أن طريقة إن أن كدحينه كله حنينه إنه كسقنا عنه الله تبارك وتعالى خيري وناكوي نسي ساس ردد بربيجن تبارك وتعالى وحليه وإن تطيعوه تهتدوا حداد نبي محمد أطيعان واضحنون إيسا حداد أمر كيسيشان واضحنونتين حداد وحو إذن كربي كله حتان واضحنونتين حيالي السقا ددك وحو يا طريقة توصن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نبي محمد وددك وحا تصيسا طريقي توصنابا ددك تصيسا يكوهنون نيسا ربي جيبا يلي تبارك وتعالى هذا تليجرام هيستيدنا ودرسه هذا فيسبوك هيستيدنا لحرير يوتيوب كان نقدعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته